waa mar kale iyo maaragtay caalamkii sirdoonnada iyo basaasiinta. Generaalkii ugu sarreeyey ciidamada dalka Shiinaha ayaa lagu soo warramaya in lagu eedeynayo musuqmaasuq iyo inuu xog muhiima oo dalka Shiinuhu leeyahay la wadaagay Maraykanka. Waxay tahay haddaba xogtan maaragtay muhiimka ah ee la leeyahay maaragtay generaalku wuu dusiyey ama Maraykanku la wadaagay. xogta lagu eedeynayo inuu maaragtay Maraykanka u disiyo waxa weeye xog muhiima oo ku saabsan barnaamijka nukliyeerka ee dalka Shiinaha. Nuclear marka laga hadlayo amaba guud ahaan hub marka laga hadlayo waa xog maaragtay aad iyo aad u muhiima ama ka midaba dee xogaha ugu muhiimsan ee uu dal yeelan karo ama ilaalin karo amaba maaragtay dee uu dal kale uu ka ogaan karo. sidaa darteed xogaha aadka uu dal kastaaba u ilaaliyo waxaa ka mid a ama maaragtay dee ugu muhiimsan xogaha ku saabsan hubka uu dalkaasi sameeyo amaba kuwa uu soo iibsado. Nuclear markay sheekadu taagantayna wayba ka sii daran tahay oo maaragtay dee waa wax aad iyo aad sensitive u ah ama maaragtay xog aad iyo aad maaragtay muhiim u ah. dalka dhanna waxaa dhici karta in 3-4 qof dadaan ka badnayn ay xogtaas hayaan. Marka maxay muujinaysaa in generaalkii ugu sarreeyey maaragtay ciidamada dalkaas Shiinuhu uu noqday basaas ka tirsan Maraykanka oo uu xogtii muhiimka ahayd ee dalkiisa uu u gudbiyey ama u dusiyey cadowgii ugu weynaa ee dalkiisu lahaayo ah Maraykanka. Arrintaas marka waxay ku tusaysaa ama waxay hoosta ka xariiqaysaa awoodda maaragtay hay-adaha sirdoonka Maraykanku ay u leeyihiin inay xataa ay maaragtay shaqaaleysiiyaan generaalada maaragtay sida kan Shiinayska oo kale maaragtay inay awood u leeyihiin inay shaqaaleysiiyaan oo ay xogta dalalkooda ay maaragtay halkaas ay ka qaataan. Sidoo kale waxay maaragtay arrintani ku tusaysaa maadaama generaalkii dalka ugu sarreeyeyba uu ahaa basaas Maraykan inay jiraan shabakado aad iyo aad u fara badan oo basaasiina oo Maraykanku uu ku dhex abuurtay Shiinaha dhexdiisa oo maaragtay kaloo qarsoono maaragtay dee weyn u wada joognaa kolley maaragtay maalmaha soo socdana in maaragtay dee shabakadaha qaar ka mid a maaragtay dee la faagi doono ama la kashifi doone. Arrintaas markaa waxay wax Shiinaha uga dhigan tahay in dalalkii Shiinaha ay saaxiibka ahaayeen tusaale ahaan Ruushka oo kale ay hadda wixii ka dambeeya ay ka fiirsan doonaan ama dib ay uga istaagi doonaan inay la wadaagaan xogaha xasaasiga ah ee maaragtay ay markii hore wadaagi jireen. maaragtay dal Shiinaha intuu aamino maaragtay xog xasaasi ah la wadaagi doona hadda wixii ka dambeysa way yaraan doontaa maadaama uu maaragtay Shiinaha dhexdiisii laga qadeeyey. Marka irbaaxo sirdoon oo aad iyo aad u xoog badan ayuu Maraykanku mar kale ku dhuftay Shiinaha.